naqasku waa igu xirnaa ma istaagi karin wax ma cuni karin qandho waa i haysay intaba ilaahay waa iga bogsiiyey waa qaar ka mid ah dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 ee la keenay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo hadda dib u helay caafimaadkooda 9 qofood oo ay ka mid tahay Maama Xadiyo ayaa laga bixinayaa isbitaalka kadib dib u soo ranaashahooda waxaa la keenay isbitaalka ayadoo xaaladooda caafimaad ee aad u liidato qaarkood uusan miirkooda joogin hadda tacaal badan oo ay u sameeyeen maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka Martini Allah ayaa caafimaad siiyay sida ay sheegeen bukaanadii la daweeyay mar allaala markii la keenay waxa la igu xiray tii naqaska waa fiicnaado xoogaa yara ka bacdi waa la soo wada qolaa la keenay ilaa iyo hadda daryeelka saana igu socday anigoo yaaban oo inta cadeeyay oo 4 cunug xambaarsan tahay iyo gaari gacan haba meel la igu tuuray guriga la igu celiyay subaxii dambe la soo cararay Soomaali Suudaan baa la ikan waa la baara waa qabtaa baa la dhahay xagee aadaabaan ku iri Martini dadka lagu dilaa hadii lagu dilo nasiibka dadka dhibanaya ka mid anoo qaawana la soo cararay maantana waa anigan labisan isbitaalka hal yimaado dawladda hal caawiyo shacabka hal caawiyo shirkadda hal caawiyo hay'adda hal caawiyo dad oo lacag haysta oo isticmaali aqoon jira aniga lacag waa haysta bartayda oo xanuunsan isbitaalka keenay 3 maalmood ka hor ayadoo ogaal lahaynin alxamdulillah shukr bil caalamiin ilaaha ma hadda iska leh waa igu caafimaaday markaan keenayay inay meed tahay anoo oqobayaa keenay waa la daaweeyay kalkaala fiican la kulmay waana ii daaweeyeen bukaanada isbitaalka ku bogsooday ayaa dadka la xanuunsanaya cudurka COVID-19 ee guryaha iska jooga waxa ay ugu baaqeen in ay yimaadaan isbitaalka laguna daweeyo markii hore saan aaminsanay iyo sida hadda isbitaalkan isku arka laba maahan waa kala labo waagi hore waxa la lahaa isbitaalka Martini dadka dhaxgay uu ku dhidhintaa lama daaweeyo balse haddaana cid aan ka yeelay ma lahan waa li daaweeyay dhaqaatiir daayira joogto kuwa weynaa jooga habeen iyo maalin u taagan dadka bani'aadanka ana hadda waxaan qiijiyay oo xubsaday isbitaalka inuu yahay isbitaal fiican isbitaal dadka lagu daaweeyo adduunyadan iska ma dhama waa waqti iska ilaahay og yahay xaaladiisa ma dhama laakiin kolba iska dhamaa doontee dhaqaatiirtan Martini yaa keenay dhaqaatiir fiican la kulmay alxamdulillah shukr bil caalamiin waa ii dadaaleen waa ii qalqaalsan isla marka sareeray ii saareen waa ii daaweeyay waxaan isbitaalkan keenay hooyaday oo xanuunsan oo oxygen u baahan isbitaalka keenay markii isbitaalka aan keenay oxygen waa la shiray dhaqaatiirtu way ii shaqeysay daawooyin way la siiyay maalinka keenay sabdiga ay ahayd sabdigiisa kalena maanta waa dhaqaatiirtu si fiican ay daawada ugu siiyeen hooyaday oxygenka waa lagu xiray madaxa shaqaalaha neersaka ee bukaanada la tacaalaya markii la keenay isbitaalka ayaa sheegtay in bukaanada ay ula dhaqmaan sida ugu wanaagsan ee qof bukaan ah loola tacaamulo waxaana diyaar u nahnay bukaankii soo xanuunsado xitaa in anaga wax walba u qabano oo wax walba oo bukaanku u baahan yahay in xataa hadii cunto la siinayo in anaga aan siiyana ama wax walba u qabanayno agaasima ku-xigeenka isbitaalka Martini ayaa isaguna sheegay in shaqaalaha iyo maamulka isbitaalku ay markasta diyaar u yihiin la tacaalida bukaanada la keeno isbitaalkan in bulshadooda caawiyaan dadka magaalada jooga oo aamis oo dhahayaan ama dacaayada dadka warxuma ku tashiilka ah oo dacaayada fidinaya dhahayaan isbitaal Martini waa lagu dhintaa war qofka dhimanaya waqtigiisa kale qofka ilaahay u dilaan cid badbaadin karta mana laakiin mar walba anaga waxaan ku dadaalnaa shaqaalahan caafimaadka ay ku dadaan oo dhaqaatiirta ay ku dadaan qofkaas inay badbaadiyaan haday tiisa galisan tii ilaahay ma celin karaan laakiin waxa jirta inta badan dadka meesha soo gala مثلا هذا حلو كله وحاكجرت ويران لحظة روح إن كله ما لحظة روح عدمت ما ولا بدبهذه سدح ما أفر أما الله كدمت تاسين وحواه لما شعادي وقت ويسخفك وقله لكن معها ضيع حمام معها أقوم درم معها ومدة الصوماليات وقعدان dadka meesha ku jira waa dad walaalahooda dhaqaatiirtooda ilmahooda wiilashooda gabdhahooda waa oo si fiican u tababaran oo daaweynaya diyaarna u ah mana jirto wax la yiraahdo dayacaad isbitaalka Martini oo ah isbitaalka dawladda ay u qorsheysay in la keeno bukaanada la xanuunsanaya cudurka COVID-19 ayaa marba markii ka dambeysay waxa la keenaya
dadka uu ku soo dhacay cudurkaasi halka kuwa kale oo caafimaadayna hadda ay ka sii baxayaan isbitaalka. Cabduqaadir Xasan Cali, Som TV, magaalada Muqdisho.